واتهي أن علي سياسي على الجوري أدان تسكن بعدنا هوش هذا كده يو ديبويل يوم ذاك بقى بروفيسور علي خليفة قراري أحمد إسماعيل سمتر مدونك يقدم بس اسمه لهم بيكسكنا يعني واحد شديد يعني دوضك الدوان ومقالين كذا لكوا قبنين لبضا بروفيسور أرموك سد ورقتين وقل كي بقول مرة أحسن أحبب اسمه جدا أنا وأيوه dadkii ka talinayay qalbiga lixdankii ayuu cali garaad jaamac yidhi iyadoo councilkii 3 ahaa fadhiyo markii la yidhi aan raacno Soomaaliya ayuu cali garaad jaamac oo dhulbahanta ah yidhi war umul baa la cadad bixiyay 6 bilood israaca dib inoogu dhiga warmaha lagu boobay hadda cali khaliifka idila hadlaya ee leh war aynu Somaliland aynu wada leenahay samaysanno markuu sidaa yiraahdo waxa la soo boodaya idin may iyo xasuuq wana la xasuuqay war xasuuqa laguma helo deeqranimo hadduu ku aniga leema xasuuqna deega takadaba oo waxa samaysataa Somaliland tii dadka la xasuuqay hadduu ku yiraahdo la xaq buu leeyahay isna waxa uu ku oran karaa dawladeedii daarad baad rid marka adeer waxa tagay ما هو حينو إنه مستقبل كنا واحد جواميني النقضة وحي تجي معه مستقبل كنا عن وقت شنو ومبو علي خليف ليه علي خليف حكى المالي إمك إيدين بما ما أنت قرن كلا جدي يجوا للسما تيوريا هذا قال كودن أرك وفرع أصل كنا محون نقضة يحزن كي نضح برنامج الصومالي أصلاً كوربي صوت يحيى الله تجي شو marka farac buu noqonayaa eedin may asalkiina waxa noqonayaa 26 ka jiro ee loo dagaalamay dagaalkuna minis buu ahaa ind muu ahayn dhammaad muu ahayn haddana maxaa looga dhigayaa waxa laga baqayaysa oo de saasoo loo dhintayo oo la dhintay xabaalaha ayba la soo faqaya war waxaasi wax dad loogu sheekay ma ahay qarankan ma wada dhisanaa oo ma wada yeelanaa حاجات كانت هنا تطبيق كنتن حبنود إساق وكوي الشغلة شري الله واتنا أيضا كلد إساق ودم شري الله تنحبنود كوي الشان كتاب كقرية هالكوكي أن وحوض يلنا دواتها دستور كهلا فرو ماها قانون علي الله فرو علي خليفة إنه البحنت الله فرو ما وإن إنجور السودان إنه إجنايو وحي إنه قلنا إنه كون أشري إنه دستور كنا iyo goorta ugu haboonay aynu furayno de inagu aan ka soo leesinad aan loo saar laakiin cali khaliif baa heshiis ku galay khaatuba heshiis lagu la galay in dastuurka la furo de anu khaatuba ka hor baan qabay in dastuurka la furo khaatubana mi waanan qabaa haddadan in la furo marka inaga la dastuurku inama laha ee dastuurkii ma wanaajisanaa oo mid ina wada qaada oo aynu iska wada dhex aragno oo aynu si cadaalad ugu qaybsano ma sameysana haddii burco maalintii aad xanaaqsanayd lagu sii daayo xolba de ha ka dhigin burco in dadka kale ay representationkii isaaq ku lahaa ay ku lahaayeen waxaa iman kara dad fara badan oo aan aaminsanin goorisuutaag dad fara badan oo laga yaabo inay 90skii xataa rumaysnaayeen laakiin kolka ay arkeen sida ay tahay dawladnimadan Somaliland dad fara badan baa imika aan haddii heli karayaan in gorgortan dambe ay Soomaaliya la galaano muxuu federaalka iyo gooni isu taagu dan ahaan marka aanad ka hadlayn hadda caadifiyada isaaq ee qalbiga jacaylkiina caybka marka aanad ka hadlayntii xamar dooni mayno marka taa ka hadlay ee aqli ka xisaabtanayso anigu haddii aan arkayo wax u dhaama gooni istaaga noocan aan arkaya een guri harin ee wax walba la iibsaday ee cadaaladeedu sidan tahay taadeer wixii aan siyaad barre ku diiday wax ka xun anigu gooni istaagda ku qaadan maayo oo ku taageeri maayadii oo aniga la igu oran maayo xabaalaha dadka ku jiriyo lafa kaygu oranayaan hadda waa kii dilayba isaaq ayadu haddan isaaqnimo safka ku soo maraan igu leeyahay marka anigu nimankan waan raacsanahay waana niman aqoon leh waana niman madaxa doodahoodana anigu waan arkayaa halka ay iska seegan yihiin dadka oo waxa weeye nimanka daarood maskaxday ka taliyaan nin jecel iyo nimaan jecelaynba
isaaquna qalbiguu ka taliya marka caadifyad weeye ta qalbigu ninka maskaxda ka taliya kolba jar buu dhigayaa isagu iyo waa sax kolka cali khaliifa la yaabinde waatayaan cali maxamed yuusuf waxaa jirta isbeddelo kala duwan oo geeska afrika ka dhacay sanadihii u dambeeyey wali 2018 ilaa waqti xaadirkan isbeddelada geeska ka dhacaya somalilan door intee lagbalka ay ku leedahay ama kaalintii ka jirta badmanaysa war halkay doonaysaa kaga jirtee isbeddel geeskan ka dhacaya oo somalilan geopolitical istaraatiijigeeda indhaha iska tira isbeddel ma noqonayo somalilan geeska afrika waxay kaga taallaa baabalmadab albaabkiisay ku taallaa gobolkan iyo mandaqadda isku soo jeedda ee ilaa carabta aba ahmiyad weyn oo aan ahayn tan waddaniga ah ee riijanka iyo mandaqadda iyo global abay leedahay haddii lagu xisaabtami waayo waa wax shaqaynaya maaha siyaasadda arrimaha dibadda somalilan inta badan asxaabta siyaasadda mucaaridka iyo bulshaduba aad bay u dhaleeshaa xilligan ma la qabtaad u taha haa dhaliilo badan baa jira siyaasadda arrimaha dibadda laad aragtaa maxay dee waxa weeye kaalintii aynu ku lahayn international communitiga iyo sidii aynu qadiyadaheenna u iibin lahayd iyo sidii aynu iskaashi caalami ah wax uga heli lahayd wax laynala soo doonto khatarku inoo keena un mooye waxaynu innagu dadaalkeenna ku keensannaa ma jiro maxay tahay markaa taladaada siyaasadda arrimaha dibadda somalilan dee waa taa ay kuu sheegay axmed ismaaciil brofesor axmed ismaaciil let us be aggressive waa inaynu noqonnaa oo aynaan muqdisho ka doonin wadahadalka muqdisho waa inaynaan ictiraaf ka doonan waa inaynu waddo kale u marnaa oo aynu qadiyaddeenna international communitiga kaga dhaadhicin karayno waxaanan rumaysanahay anigu waxaa ka dhow oo ugu dhow in la yidhaha siyaasadda khaarijigu ay noqoto ma aha aanu soomaaliya wada hadalno ha laga qaado aqoonsi ha laga qaado afti shacbiga somalilan xaq buu leeyahay madaxweyne codun buu leeyahay ka muqdisho joogay oo dhashay muxuu ka yaree ra'iisul wasaare ku-xigeenkiina cod buu isna leeyahay every one of us cod buu leeyahay weliba beersantka intay goorigoor tahay haddaynaan qabannin aftidana beersantku waxaad mooddaa inuu isa soo weydaaranayaba oo anugu garan maayo maanta midnimo iyo gooniisutaa kaanu codaynayo waayo aniga waxaan ku go'aan qaadanayaa waxa dadkayga u dana ya dalkayga iyo dadkaa anugu aan ahay wixii u dan ah ayuunbaa i xukuma caadifiyad iyo gooniisutaag iyo isaaqnimo iyo hebel iyo anigu daaroodna maan necbayn siyaad barrana maan necbayne waxaan necbaa nidaam iyo sharci cadaalad darro iyo kelitalisnimo ayaan diiday dee tii lafteedii oo ka sii xumi markay somalilan ka dhacdo miyaan iska taageeraya ayad u qabtaa no ma taageeraya markaas waxaan leeyahay federaalkaasaa u dhaama marka anigu ninka weliba ninka esanami soo inuu aad uga duwanaado maaha wuxuu isticmaalayaa wixii siyaad barre isticmaali jiray dawladdii horena annagaana loo tirinaya esanama tanna annagaa lanoo tirinayaayo esanama waxa dalka ka dhacayna waa ogtihi dee markaa miyaan isku esanam ba adeernay marka waxaa ogol anigu waxaan leeyahay qaaxaannu wada joognay dee macnayma samaynayso waa inuu ka fogaadaa wixii aan ku diidey ee aan qoriga u qaatay ee aan kula dagaalamay siyaad barre hadduu koofiyad casbadan ii soo samaystoo shicibkay ku durduriyo ma sacabkaan ugu garaacaya markaa waxyaabahaasaa ku muuqda miyaad sheegaysa waxaasna way muuqdaan waxaasna way muuqdaan